galab wanaagsan dhallinyarada saaxiibka la ah barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda deegaan 95.5 megahertz marka aad maqasho maxaa ka taqaanaa jacayl weliba jacaylka aamusnaanta ah haddii lagu yidhaahdo waxaa niyadaadu ku soo dhacaysa qof aamusan dabcan waa qof sidee ah waxaa jira dhowr nooc oo loo kala qaado jacaylka kaas oo ay ku dheehan tahay ama uu ku dhaco rag iyo dumarba midka uu doono ha ahaadee waxaa jira noocyo xishood ah oo nooc aamusnaan ah oo qofka ilaahay uu ku munaysto haddaba haddaan soo qaadanno jacaylka noocan ee loo yaqaano jacaylka aamusnaanta waa nooc ku dhaca qaar ka mid ah dhalinta ragga iyo dumarka balse way adag tahay qofka inuu u sheegto jacaylkiisa qofkii uu jeclaa baqdin awgeedna nafsaddiisa waxa uu u sheegaa oo inuu yidhaahdo allaylehe maxaad kala kulmi kartaa jacaylkan ee iska aamus baqdintaas ayaana qofka ku sababta in uu guuldaraysto sidaasi daraaddeed mana u sheegan karo qofka ama gabadha uu jecel yahay ama wiilka ay jeceshahay qofka ku dhaco jacaylka aamusnaanta hadday gabar sidaas darteed ay inta badan uga aamusto wiil ay jeceshahay waxa la yidhaahdaa waa ay xishootay haddaba culimmada ku xeeldheer cilmi nafsiga waxa ay sheegeen jacaylka aamusnaanta ah intuusan u baahnayn hadal badan sidaas darteedna waxaa jira calaamado muujinaya jacaylka dhabta ah oo weliba isku fahmaan gabadha iyo wiilka markaa isdoonaya iyagoo aan waxba hadal ah is odhan allaylehe jacaylka haddii uu soo dhex galo xishood waxa uu noqon doonaa in labadaasi qofood in mararka qaarkood xitaa loo kala garnoqdo taas oo ay inta badan yihiin inay isdagaalsan yihiin iyo inaysan isdagaalsanayn aan la fahmi karin inta badan dumarka ayaa xishood badan iyagoo aan dareenkooda u furin qofka ay jecel yihiin balse waxaad ku garan kartaa gabadha aamusan calaamadaha ugu waaweyn ayaa ah inay mar walba joogto meelaha wiilka ay jeceshahay uu u badan yahay iyo weliba in muhiimad gaara ay siiso marka uu la hadlayo iyo marka uu yidhaahdo waana ku imaan karaa waa aan ku arki karaa laakiin kulama hadli karo haddaba ninka haya jacaylka aamusnaanta isaga waxaad ku garan kartaa inta badan isaga ayaa ka fogaada waxyaabaha keeni kara in jacaylkiisa afka uu ugu sheegto gabadha uu jecel yahay halkaa iska fiiri dhegayste wuxuuna inta badan isku dayaa inuu uu garab dhowaado uu caawiyo mar kastana uu ka warhayo laakiin aanu u sheegan jacaylkiisa waxayna dhibaato ka jirtaa ma sheegan karo oo afkiisa ma soo qaban karo waxaan soo xasuusta heestii ahayd afka lagama sheegto adigoon jacayl arag lo'mana uur xumaado inuu hadalka uu ku istaago qofkaas ayaa macquula marka uu gabadha la hadlayo inay farxad ka muuqato wejigiisa marka gabadha ay la hadlayso taasna waxay noqotaa in inta badan jacaylkaas uu noqdo mid aan guulaysan jacaylka dhabta ahna waxa uu yahay midka la doonayo qofka aad jeclaato inaad u bareerto adigoo runta u sheegaya adigoo inta badan ku ammaanaya qofka waxa uu yahay dumarkuna inta badan waxay jecel yihiin ammaanta haddii gabadha aad u bandhigato jacaylka oo ay ku aqbashana waxaa muhiim ah in lamaanahaas haddii laga aqbalo jacaylkaas uu noqdo mid guulaysta guushaasna waxay noqon doontaa mid lamaanayaashu inta badan ay ugu dabaaldegaan mustaqbalka dhow ama kan fog in jacaylkooda uu
ولي